jungle. Maskaxdu waa qaybta maamusha dhammaan xubnaha jirka noolaha taasi oo ku taala madaxa. Si la mid ah, waa meesha xukunta dareenka, dhaqdhaqaaqa ama nuuxnuuxsiga jirka oo dhan. Maskaxda waxay leedahay neerfayaal malaayiin ka badan. Sidoo kale, waxay leedahay 150 milyan oo unugyo ah. Waxaa xusid mudan in maskaxda ay ka samaysan tahay 73% biyo. Haddaba maxaa dhaawici kara maskaxda? Maskaxdu waxaa dhaawici kara 7 qodob oo ay caado ka dhigtaan dadyowga qaarkood. Waxaase ka mid ah 1. In dadka qaar ay ka tagaan quraacda subaxii, taasoo ay dad badani aysan ogeyn in ay dhaawici karto maskaxda. 2. Dhafarka joogtada ah. In la joogteeyo dhafarka ama soo jeedka habeenkii waa qayb ka mid ah dhaawacyada soo gaara maskaxda. 3. Hurdada oo lagu daaho subaxii. In hurdada lagu daaho subaxii waa qaybta ugu weyn dhaawaca soo gaari kara maskaxda, taasoo ay noqon karto halis caafimaad. 4. In aad wax cunto adigoo daawanaya TV ama kombiyuutar. Sidoo kale, qodobka 5 ayaa noqonaya in aad seexato adigoo qaba kabahaaga ama iskaalshadaada ama sagsaantaada. Qodobka 6 waxa uu noqonayaa in aad isku celido kaadida adigoo wahsanaya xilliga hurdada ama adigoo shaqo ku jira. Qodobka ugu dambeeya ee 7 ayaa noqonaya in aad sokor badan isticmaasho. Tani dad badan ma oga in sokortu badan ay tahay halis caafimaad, gaar ahaan maskaxdu in ay halis ku tahay. Fadlan ka fogow 7 qodob haddii aad danaynayso caafimaadkaada. Ka taxadir naftaada oo sare u qaad caafimaadkaaga. Jungle.